dalka Spain waxa ka soo ifbaxday fadeexad weyn oo ay maanta warbaahinta dunidu aad uga hadlaysay oo qaada dhigaysay arrintaas oo la xiriirta daaweynta bukaanada qaba coronavirus. mid ka mid ah dhakhaatiirta ku sugan caasimadda dalka Spain ee Madrid ayaa ka shifay xirfadlayaasha caafimaadka ee caasimadda Spain ee Madrid lagu khasbay inay oksijiinka ka siibaan bukaanada da'doodu ay ka weyn tahay 65 sano jirka si ay isaga dhintaan. dhakhtarkan ayaa sheegay in bukaanada waayeelka ah la suuxinayo iyadoo aan la siinayn wax oksijiin ah ilaa ay ka dhintaan si qalabkooda looga faa'iideeyo dadka da'da yar. dhakhtarkan oo ilmada ceshan kari waayey xanuunka niyadeed ee uu dareemaya dartii isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa uu leeyahay los respiradores en Madrid y las están sedando para que mueran porque no hay respiradores para todos y se los quieren dar a los más jóvenes. dadka waayeelka ahi dalkan xaq ayay ku leeyihiin wax sax ah oo la aqbali karana maaha inay ku dhintaan karaamo la'aantaas. dhakhtarkan ayaa arrintaasi ku tilmaamay xasuuq wuxuuna siyaasiyiinta Spain uu ku eedeeyay inay waqti fiican dalkan u diyaarin waayeen agab caafimaad oo ku filan inuu xaaladdan la tacaalo. waxaa horay u soo baxday in magaalada Turin ee dalka Talyaaniga laga hirgeliyay habraac caafimaad oo dhigayay in geerida lagu daawado dadka 80 da'doodu ay ka weyn tahay si loo badbaadiyo dadka kale. dalal dhowr oo midowga Yurub ka tirsan ayaa habraac cusub ka soo saaray sida mudnaanta loo kala siinayo bukaanada haddii lacala ay timaado xasrad caafimaad oo xadka dhaaftay oo uu la tacaali kari waayo hanaanka caafimaadka kuwaas oo da ahaan lagu qiimayn doono in geerida lagu daawado kuwa da'doodu ay weyn tahay.